بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي waxaan wanaagsan daawadayaal dhamaantiin kuna soo dhawaada barnaamijkeeni muuqaalka nolosha barnaamijkeena muuqaalka nolosha waa barnaamij toddobaadle ah oo kaga hadlo arrimaha dhaqanka dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada dhowr iyo 10 sanadoodii ugu dambeeyay Soomaaliland waxa ka socda dadaal ballaaran oo la xiriira dib u dhiska dalka hirgelinta mashaariic horumarineed aasaasidda shirkado ganacsi oo gaar loo leeyahay waxa kale oo dalka laga hirgeliyay qaybo kala duwan oo kamid ah wax soo saarka dhinaca warshadaha yaryar isgaarsiinta kobaca waxbarashada iyo adeegyada kale ee bulshadu u baahan tahay dhamaanba adeegyadaasi waxa hirgeliyay oo ay ku yimaadeen dadaalka shacbiga Soomaaliland iyo xukuumadda oo iskaashanaya waxaana inta badan hormuud u ah horumarkaasi qurba-joogga Soomaaliland oo u bareeray inay dalka maalgelin ku sameeyaan isla markaana waxa maalinba maalinta ka dambaysa kor u sii kacaya noocyada maalgelinta ah ee ay muwaadiniinta Soomaaliland dalka ka hirgelinayaan toddobaadkan barnaamijkeena muuqaalka nolosha waxaynu ku eegi doonaa halkani waa xerada lagu xanaaneeyo lo'da nooca loo yaqaan jambuusida iyo warshada lagu farsameeyo caanaha laga maalo lo'da waxaana warshadaasi soo saartaa caanaha loo yaqaan ramad iyo noocyo kale oo kamid ah sharaabka la cabo habkani waa qaab kale oo casri ah oo kamid ah hanaankii xoolaha loo xanaaneyn jiray waa goobta loo yaqaan Green Valley Dairy Farm oo ku taala dhinaca waqooyi ee caasimadda Hargeysa masaafo dhan ilaa 30 kilomitir ama duleedka degmada Dar es Salaam waa xarun ay maalgelin ballaaran ku sameeyeen xubno kamid ah ganacsatada Soomaaliland waxa isku barbaryaala xero lagu xanaaneeyo in ka badan 100 neef oo lo'da nooca loo yaqaan jambuusida ah warshada lagu farsameeyo caanaha ka soo baxa lo'daasi iyo beer weyn oo lagu beeray dalagyo kala duwan oo kamid ah tigaada ay xooluhu cunaan iyo noocyo kamid ah noocyada lagu naaxiyo xoolaha maraanu dhawaan booqanay xerada Green Valley Dairy Farm waxaanu kula kulanay mas'uuliyiinta iyo howlwadeennada ka howlgala kuwaasi oo aanu ka xog wareysanay aasaaskii xarunta iyo howlaha haatan ka socda shirkadan magaceedu waa Green Valley Dairy Farm waxay ku taala degmada Dar es Salaam oo u jirta 27 kilomitir magaalada Hargeysa waxaana halka loo doortay sarfee cilmiyeysan oo shirkadu qaaday inay noqoto meel biyo iyo baadba looga heli karo project-gan markaas wadnay shirkadu waxa la aasaasay 2006 muddo laga joogay imika 4 sano 2006 bartamaadkeedii baa la aasaasay waxaana ku timi fikrad maalqabeennada ugu waaweyn ee dalka iyo aqoon-yahano qurba-joog reer Soomaaliland waqtigaas ay ku kulmeen magaalada Nairobi iyagoo ruuxaantii mid walba wata fikrad gaar ah oo uu ku doonayo inuu ku soo saaro caanaha freshka amba dadka loogu soo saari lahaa bulshada reer Soomaaliland hasaata markii dambe waxay go'aansadeen inay fikirkooga iyo maalkoogaba iskugu geeyaan inay furaan warshad casri ah oo dairy farm oo soo saarta caanaha kala duwan iyo sida oo kalena juiceska different types of juices oo dhan ay soo saaraan waqtigaas baa la aasaasay shirkadda waxa maamulkeeda iyo hirgelinteeda iyo maamulkeedaba iska leh ganacsato reer Soomaaliland waliba kuwa ugu waaweyn maanta la yaqaano iyo sidoo kale niman aqoon-yahano oo qurba-joog ah oo iyaguna dalka dibadiisa jooga waxay leedahay board ka kooban 5 xubnood 5taas xubnood ee maalgeliyaasha waxay gudoomiye ugu doorteen inuu noqdo mudaba hayay Cabdullaahi Gahayr Faarax oo hadda Kanada ku maqan oo shirkadda xagga imika Kanada jooga saamilay isku tagtay oo runtii hanti badan gelisay weeyaan si dadka kale ee Soomaaliland looga faa'iideeyo 25% waxa ka qayb galay bulshooyinka reer Soomaaliland iyaguna share ku leh kuwaas oo preferable shares wax loo yaqaan means inay adduun ku darsadaan profit-ka yearliga sanadkaana ay wixii ka soo baxay marka la siiyo balse ay maamulkii awood lahayn shirkadu saas baa lagu maalgeliyay shirkadu maraaxil aad kala duwan bay soo martay run ahaantii waa markii ugu horeysay ee barnaamij noocan ah amba dairy laga sameeyo dalka ma jirin waa aragnimo aqoon ugu horeysay oo ka sii hana qaad karno
taas waxay keentay inaynu xog badan iyo dalal badan loo maro sidii looga hirgelin lahaa shirkaddan. waxaanu ka bilownaa meel bilow ah oo omoso oo aan wax nooga horreeya jirin. beerta weyn aad arki doontaan waxaa ka koobantay 70 hectar. shirkaddu waxaa kaloo dhammaystiran dhismayaasheedii hadday noqonayd kuwii maamulka iyo hadday noqonayd kuwii productionkana. material ahaan iyo training ahaanna waxaa naga caawisay ambaba samaysay shirkad faransiis oo la yidhaahdo Albis Industries oo iyadu hirgelisay xirxidhidda installationka iyo dhammaystirka productionka islamarkaana tababara siisa shaqaalaha ka howlgala. shirkadda waxaa ka howlgala shaqaale kala duwan oo departmentska kala duwan ee shirkadda guud ahaan kuwaasoo tiradeedu dhan tahay ilaa iyo 50. waxaa kale oo jira ilaa 20 kale oo iyaguna ula shaqeeya si dadban amba si indirect ah oo inba shirkadu ay wax ka iibisa ama iyagu wax ka iibiyo oo ku xidhan. marka waxay u eg tahay meel iyada lafteeda shaqo abuuridda dalka. Green Valley Dairy Farm waxay u qaybsan tahay dhowr qaybood oo kala duwan oo ku yaala xeradaasi, kuwaas oo ay ka mid yihiin xerada ay looda lagu xanaaneeyo, taasi oo loogu sameeyo xanaanooyin kala duwan oo la xidhiidha daryeelka looda. beerta weyn ee ku taala agagaarka warshada, taasi oo ay ka beeran yihiin caws nooca loo yaqaano Sudani grasska iyo noocyo kale iyo waliba galleyda iyo noocyo loogu talagalay in lagu naaxiyo. Adnaan Nuux Gahayr waxa uu ka mid yahay howlwadeenada gacanta ku haya xanaaninta looda. waxa uu ka warramay qaabka ay u xanaaneeyaan loodan. bismillaahir rahmaanir rahiim. horta aad baan maasantiin qoliyinan ka socda Somaliland National Television booqashada gaaban aad nasoo siisan aad noo soo booqateen ana doonaysaa inaad barnaamij ka sameysaan aad baan horta idinku mahadnaqaya. haddii aan idinka warramo horta qaybtan beerta waa qaybta ugu muhiimsan ee ah warshada Green Valley Dairy Farm. qaybtan saad warkaysaan waa qaybta ay ku xidhan tahay looda basic ahaan. waxaanu beernaa doog aad u fara badan oo ah Sudani grass, waxaanu kaloo beernaa Lusciana tree, waxaanu kaloo beernaa Camora grass, waxaanu kaloo beernaa alfalfa, waxaanu beernaa koonkii oo ah galeydii, waxaanu beernaa geedka aad arkaysaan markaa ku yaala ee Soomaali gubeyska u yaqaanaan. nafaqa ahaan haddaan uga hadalno waxay u tarayso looda, horta waxay u tartaa midba waxaan ka siinaa saami oonu isku mar kaliya ma wada siino, mid waxaan siinaa 30%. haddaan ima ka soo qaado Sudani grass oo 50% bay cuntaa, Lusciana 30% bay cuntaa, 0.02 bay cuntaa alfalfaha. hadduu isku dhexdhafano sameynaa mixed fruit aad mar waan u ridqnaa marna iyadoo gooniyaanu siinaa. saad arki doontaan dad looda insha Allah soo booqataan. tigaada halkan ku taala inteeda badan waxa laga yaabaa in aanay dadku garanayn. waxaan ku weydiin lahaa Cadnaan, tigaadan matu asalkeeda dabiiciya oo ka baxday dalka Soomaaliland baa mise wato beertan ugu horeyso idinku beerteen? horta tigaadan badankeeda waxaad moodaa inay imika ugu dalka ugu horeyso sida geedkan alfalfa oo kale, laakiinse geedka Lusciana tree isagoo hore uu yaalo 1975 ayaa isaga dalka la keenay. Sudani grasska isaga waxaan ka keenay Kenya, Camora grass isaga waxaan ka keenay Kenya, laakiinse galeydana hore iyaga waan u naqaanay. laakiinse waxay nagu cusub dalkeena ahaan marka loo eego geedkan alfalfa oo ah geed aad u bartiin badan oo hadduu neefku dee xaddi badan cuno ku keenaya inuu neefkaasi calooshiisa oo ama ay qaraxdo ama dib aad bartiinkiisu aad u badan yahay. laakiinse tigaada badankeedu umadeena wada taqaana intii beeraleena way aad u beerataan. waaga Cadnaan waxaad ka warantaa halka waxa ka muuqda sida ay u waraabisaan beertan. runtii waa system casri oo aan ka jirin aan baan hore loogu arag meelo badan oo Soomaaliland kamid ah. imsa qaybood bay u qaybsan tahay systemkan si ay u soo saartaan biyaha tigaada si ay u qorsheysan. bismillaah. horta haddii aan kaaga warramo horta si aan biyaha ku soo saarno, horta waxaan leenahay ceel riigan ka qodnay oo ilaa 110 mitir qodan. waxaan u sameynay oo kale laba barkadood waaweyn baan leenahay. halkan imka saad u aragtaan waa qaybtii A sectionkeedii saddexaad oo imka cabaya. qayb walba section walba wuxuu cabo 40 minutes ama 40 daqiiqo ugu cabaa. kadib markuu cabo haddana waxaan u wareejinaa qaybta kale oo ilaa maalintii waxay ku baxdaa ilaa 4 barkadood inaan qayb walba ku waraabino. qaybtan oo soo kale iyada habeenkii bay cabtaa, qaybtan iyada waa maalintii. doogan wuxuu soo baxaya markaa ilaa 2 bilood ilaa 3 bilood kadib wuxuu gaarayaa xilligiisii la goosanayay. kadib xilligii la goosanayay markuu istaago cagaf saad halkaa ku aragtaan waxaan ku soo xidhnaa bahal dooga jarta. taas markii dooga jarto kadib waxaan ku xidhnaatay iyadana dooga aruurinaysay. markan dooga iyadana aruurin kadib waxa la qaadaa waxaan soo saarnaa buurigi. markan buuriga soo saarnaa waxaan keenaa warehouse-ka markan keenno waxa noo yaala machine bundle gareeya. marka each bundle wuxuu ku xidhaa 25 kilo ama 25 kg.
kadib 5 kg waa standardkan ka qaadanayna saan hadhow toro looda u siino kolba waxaan siinaa maalintii ama 15 ama ilaa 20 oo u dhigmaysa ilaa 4,500 kg ama ilaa 3,000 kg maalintii aan siino oo kilogram baan siino saadootaan imika loodii waxay cunaysaa imika foodarkii ama waxay cunaysaa cuntadeedii cuntadan markay loodu cunto waxay sameynaysaa waxay ka cabaysaa bandhalka yar oo ay gujinaysaa markay adigu qabato ama ay haraad ama ay biyo u baahato si ay biyo ku filan cabto cala neef maalinkii wuxuu cabi karaa ilaa 70 litir ilaa 80 litir inta u dhaxaysa ayuu cabayaa caanaha hadhow laga helayaana kolba waxay ku xunantay kolba hadba intuu cuntada u cuno waxaa laga helaa adigu average haddaan idii qiyaaso maalintii cala neef waxaa laga helaya ilaa 10 ilaa 12 litir ilaa 15 litir inta u dhaxaysa waxaana la lisi karaa neefka ilaa 2 jeer aroortii hore iyo waxaa la lisi karaa habeenkii late xilliga dambe ilaa 10 habeenimo intaas la lisi karaa la average ama kala isku soo celiyo maalintii uu buuxin karaa neefka ilaa 20 litir maalintii waa laga heli karaa dhammaantii sidoo dhan yahay marka la lisayo xoolaha dabcan haddii aan kuu sheego muusow marka xoolaha la lisayo waxaa la taa meel halkan oo milkin baaro la yidhaahdo dhankan waxaa u geliya bidixda 4 neef u geliya dhankan midigtana 4 neef geliya tanaasood mishiinkaas markuu 4 tanaasood u garo wuxuu leeyahay wuxuu sameeyaa diirimaad buu sameeyaa si neefku u godlado dushiisa neefku intuu mishiinkaas soo socdana biya lagu qaboojinaya si aan u dareemin mishiinka guuxiisa iyo waxa soo dhan uu neefku stable hado laakiin if hadii uu sameeyo neefka mishiinka guuxiisa uu aad buu dhaqaaqaya neefku oo waxa sameynaysa inuu caani dib u celiyo saadareedii neefku waxaan ka dhignaa stable baan ka dhignaa biyo dushiisa ku shubnaa kuleeyar baan hoos ka soo deena si neefku lagu taagnaada markaas qaybtani waa qaybta lagu liso looda marka caanaha laga dhijinayo hawlwadeenada ka hawlgala warshada ayaa inoo faahfaahin doona qaabka halkan caanaha loogaga maalo injineer nooga waran looda xaggaasay ka soo galaysaa qaybta looda ku jirto waa dhinaca kolkii 8 midba xaggaa soo istaagaya dhinaca shishana 8 ba soo istaagaya marka milking baloorkan mar qura wuxuu ka lisayaa 16 neef ayuu ready si complete uga lisayaa aalada la galisayna wata automatic andaga lagu geliyo wada aragta sama aha mid walba 16 neef taasa lagu gelinaya 16 marka waxay ugu qaadanaysaa adigu say 45 mid 16 kiiba xaggaas albaabkaas uu ka baxaya xaggaas ay ka soo galayaan taana xaggaana way ka baxayaan marka waxaa jira wax qasabad baa qaadayso wax isku aruurinaysa taangiga yar Soomaaliya halka ku jira marka vacuum wax la yiraahdo kalis si vacuum oo neef yani bila hawa oo pressure sameynaya ayuu ku lisaa dabadna wuxuu galayaa taangiga yarna waxa ka qaadaya pipe kaas oo wuxuu geeyay tembiga aad soo aragtay xag taangi weynaa taangi waxa Soomaaliya taas Soomaaliya taas imanaya taas ka qaadaysa pipe ka qaadaya neefka kalisa wata waa dhinacana waa 8 oo mitarkii mid walba mitarkiisu ku xidhan yahay marka taana lagu gelinaya Soomaaliya garan waxay ku soo dhacaysaa milking maxaa mitarka waa 15 litir 18 kolba intuu neefku awood u leeyahay pipe kaas uu raacaya hoose taangiyaad hore u sawirto ku dhacaya marka wuxuu gudbinaya taangiga lay weyn xagga ana kolkay ka soo baxaan qaybtan lisaya milking baloorka automatic baybabkaas soo raacayaan xaggan ay ku soo dhacayaan marka kuwana ka qaadaya bamka xagga marinaya baybkaas uu maraya wuxuu gudbinaya warshada inta sidaas ay ku dhantahay warshada mar haduu gudbiyana okay لازم كاسة قارية وفجينا قاعدة ورشد المرحب
muuqata halkan waa qaybta wax soo saarka ee warshadan soo saarta caanaha ee loo yaqaano Ramad ama Green Valley loo yaqaano sida idin muuqata waxa soo baxay midhihii ugu horeeyay oo kamid ah caanihii Ramad iyo tufaaxi waa wax soo saar wadaniya oo aad u macaan oo ay dadku xiiseeyaan warshada lagu farsameeyo caanaha laga maalo looda waxaanay soo saartaa caano aad u fara badan oo saafi ah oo lagu magacaabo Ramad warshadu waxa kale ay soo saartaa noocyo kamid ah sharaabka la cabo Umar Badmaax waa injineerka warshada isla markaana waa madaxa wax soo saarka warshada waxaanu ka waramay qaabka ay warshadu u shaqeyso okay imika waad aragteen loo badan baa dhashay oo lactating cows baa la yiraahdaa kuwa caanaha soo saara adigu maximum production keen horta uu furan yahay oo capacity-geeda wuxuu noqon karaa ilaa 10,000 oo litar 15,000 oo litar laakiin imika waan bilaw baan nahay inta ugu horeysan ugu muhiimsan waxaan loo odan in si wanaagsan loo xanaaneeyo dawadeeda la ilaaliyo oo waa loo special Holstein cows baa la yiraahdaa marka wuxuu loo odeynaa local cow la mid maaha qarash badan baa naga baxa inaan xanaanadeedii waxa waad aragteen caws badan iyo sprinklerkii iyo beertina waad soo aragteen capacity-ga soo saari karto maalintii waa between 5,000 liter 5,000 liter ilaa up to 6,000 ay soo saari kartaa 6,000 liter ha markaad eegto caanaha soo saartaan mayago caanahan dhay un baa iibisaan oo magaranaysa aad ku iibisaan mise noocyo kala duwan oo aad u samaysan baa jira caanahan as a product waxa laga saarayaa subag marka subagiina waa laga hagaajinayaa ghee ayaa laga sameeyaa butterkiina waa laga sameeyaa waxyaalo badan baa laga sameeyaa yogurtkii baa laga hagaajinayaa oo lebankii baa laga hagaajinayaa caanihii dhayga ahaana waa laga sameeyaa whole milk oo full cream ah oo dee waad aragteen suuqa waad ku aragteen oo very high quality ah marka product ka caanuhu way badan yihiin sidaan kugu sheegay markaan u gudubno wax soo saarka kale ay soo saarto warshadu halkan sharaab baa yaala liin baa taala intee leeg baa soo saartaan iyaga maanta runtii waa dee wax suuqay ku xidhan tahay imika waan still new born nahay laakiin the demand keenu aad buu u sareeyaa ma sha Allah customers keena waan satisfy gareena macnihii waan gaarsinaa meel walba imika Hargeysa dhexdeeda goboladana imika way ku socotaa marka capacity wanaagsan oo fiican oo de ku filan Somaliland for the time being one sameena markaad eegto quality-ga amba tayada agabkan aad soo saartaan quality-giisu markaad eegto sharaabka inoo yimaada iyo kan aad soo saartaan idinku sidee baad u qiimaysan quality-gan iyo maxaa idin halbeega horta quality-gan alaabtan wadanka dhexdiisa lagu sameeyo waa alaab de fresh ah wax si kuma darno diweyn farabaran oo preservatives ma soo maraan dariiq dheer oo maraakiibta ilama berbera for example oo markabkii lagu soo qaaday imka sharaabkan dibadaha laga keeno kale sharaabkeenan waa sharaab fresh ah oo wadanka dhexdiisa lagu hagaajiyay waana aragtay wadhanmisay kan macaan sharaabadan dibadaha laga keeno waxyaalo badan bay ka reebaan anagu waan quality-ga sharaabka for example linta ku jirta percentage fiican baan ayaan gelinaa oo vitamin C baa laga helaa marka dadkii caafimaad bay ka helayaan for example xagga sharaabka kale dibadaha ka imanayo oo xitaa investigation lagu sameeyay si loo hagaajinay anaga ku eegno waa asiir nadiifa oo pasteurized oo si wanaagsan loo hagaajiyay preservatives ka fara badan oo ka ilaalinaa dadkana caafimaadkeeduna uu fiican yahay ma caarurta yaryar macaanahana kolka lagu daro waa very good quality noocyada bal hadii aad noo kala sharaxdo kan huye iyo kan iyo kan waa tufaax waa tufaax oo 500 ml weeyaan marka isagoo 250 ml waan sameynaa hal litarna waan ku darinaa kanna waa mushakkal waa mixed fruit tropical isna sida waxaan imiko kan waa 250 ml 500 ml waan sameynaa hal litarna waan sameynaa kanna waa lintii waa aragtaa waxaan naga dhiman ananaskii iyo maangadi
ayaa naga dhiman oo sample skin ayaan u hayn tanna waa cirti strawberry aad bay u macaan tahay oo waa dhamisay oo special weeyaan caano fresh laga sameeyay caanaha lo'do fresh laga hagaajiyay marka iyadana hadee 250 mililiter waan sameeynaa hadhow demand kooxda suuqa ku xiran tahay hal litarna waan sameyn karnaa markaan su'aasha ugu dambaysa ku weydiiyo sidee u qaabilay bulshada Soomaaliland feedback ka soo noqday markii ay baasha suuqa geliseen maxaan ugu sheegi kartaa wonderful aad bay u fiicnay aad bay ula qabsadeen horta immediately markiiba dee waa garanaysaa caanuhu suuqa ku yar yahay caanaheena tayadeeda iyo quality-geeduna aad buu fiican yahay isla markiiba kolkaanu hagaajinay production-kii ugu horeeyay si wanaagsan bay u qaadeen feedback-una waxa ahaa dadku aad bay u amaanayeen runtii tayada iyo si yani quality-geeda waa caano fresh weeyaan oo dee waad aragtay loo soo nadiifiyay oo pasteurized ah samad garan oo chemical-na ku jirin oo sideedii ah wax soo saarka ka soo baxa warshada Green Valley Dairy Farm oo ah warshada soo saarta caanaha Ramad oo haatan si rasmi ah loogu iibiyo suuqyada Soomaaliland waxay qayb ka tahay horumarka dalka ka socda waana warshadii ugu horeysay ee nooceeda ah ee laga hirgeliyo dalka oo la mid ah heerarka wadamada hore u maray waana tallaabo ku dayasho mudan isla markaana waxay qayb ka tahay kobaca dhaqaalaha dalka shaqo abuurka iyo badbaadinta deegaanka marxaladii ay soo martay warshadu iyo heerka ay haatan taagan tahay iyo qorshayaasha mustaqbalka warshadu hiigsanayso waxaanu wax ka weydiinay kusimaha gudoomiyaha shirkadda isla markaana ah madaxa maamulka iyo xisaabaadka warshada Naasir Cismaan Maxamed kullu waxa iska jira caqabad badan ama dhibaatooyin badan oo la soo kulanto waxa kamid ah dhibaatooyinkan la kulano dooxa markuu biyuhu da'aan oo kale amba wadada dooxaas marka laga talaabayo ee beerta u dhow oo runtii marka uu qoyan yimaado amba ay baabuurtu in badan ku dhimato inay ka gudbaan waxa kale oo kamid ah iyagoo cayayaanka marka qaar kood ku dhashay beerta kuwaas oo cayayaan beerta xaalufin u keena waxa kamid ah dadkii oo aan garanaynin amba aan la qabsanin runtii production kan amba caanaha freshka ee pasteurized-ka aan chemical lahayn in laga dhaadhiciyo oo promotion badan aan u sameeyno waxyaalaha kamid ah caqabooyinka nagu hor yimi laakiin xoogooga waxaan moodaa inaan ka soo gudubnay ujeedooyinka shirkadda loo asaasay runtii ujeedooyin badan bay ka lahayn maalqabeenadan maalgeliyey amba hirgeliyey warshada noocan ah marka koowaad in ay tusaan dadka reer Somaliland inay dalkooda hooyo ay maalgashadaan oo ay ka baxaan inay ku tiirsanaadaan dadka imika waad aragteen caanaha yare maraaciga amba yamanigu waxay nagu yimaadeen Sacuudiga iyo Yaman waa dhul saxraa ah oo lama degaana iyaguna waxay ka bilaabeen halkan aan maanta ka bilownay shirkadda imaal maraaci caanaha ugu badan hadda adeegto 4 saac ku bilowday waqtiga ay sameeyeen maantana halkii marayso waan ognahay marka inaan dadka tusnay inay maal gashadaan dalkooda oo ay aaminaan oo ay ka sameeyaan waxa kale oo ujeedooyinkeeda kamid ah in dadka reer Somaliland helaan caano fresh ah oo dalkooda lagu sameeyay kuwaas oo caafimaadkooda iyo nadaafadooda iyo tayadooda lagu tijaabiyay dalka oo ay tahay wax iska hubaan ujeedooyinka kamid ah lafteeda in shaqo abuurid loo sameeyo dadka reer Somaliland oo ilaa 50 qof oo kala duwan maanta shirkadda ka shaqeynaya ruuxantii waad arki doontaan cid ajaanib shirkadda aad ku dhaxalki doontaan ama ku jiraan ma jiraan ma laga bilaabo halka ugu hooseysa ilaa halka ugu sareysa waa shaqaale iyo dhalinyar reer Somaliland oo loo train gareeyay shaqada ay qabanayaan anaguna aan ku kalsoonaanay xeewshii aan u diranay inay qaban karayaan ay sameyn karayaan waxa kamid ah dhaqaale abuur lafteedii bulshada marka income-kii amba dhaqaale bulshada reer Somaliland oo dhan ay ka dhax qaadanayaan iyo sidoo oo kale inay ku dhiiradaan dadka kale ganacsatada inay dalkooda ka sameeyaan warshada noocan oo kale ah marka ujeedooyinkaas oo kuwa ugu waaweyn aan isleenahay aad sameysaan shirkaddu waxay leedahay qorshayaal badan oo mustaqbal taas oo aan doonayno inaan ku hirgelino shirkaddu imika waxay ku jirtaa initial stage-kii ugu horeeyay muddo imika waxay shaqeynaysaa ama production-keedu uu suuqa joogaa muddo 6 bilood ah waxay rajaynaysaa shirkaddu mustaqbalka soo socda inaanu balaadhino saleska inaanu dhammaystirno dhammaan gobolada dalka oo dhan iyo weliba wadamada aynu jaarka lanahay inaanu quality-ga iyo tastiga mar walba production-keega anagoo tixgelinayna feedback nagaga soo noqda customerska inaanu wax badan ka bedelno waxaan rajaynaynaa inay noqoto shirkad casri ah oo dairy farm ah oo dalka oo kaliya maaha gobolada kale ee wadamada kale ee jaarkeena la aan ka soo iibino waad aragteen oo looda imika noo joogto waa loo jaabus baa la dhahdaa waa wadamada jaarkeena ka soo iibsanay runtii
haddii cuntadeeda iyo caafimaadkeeda laga shaqeeyana waxay noqonaya waxa laga heli karaya caano aad u badan oo kafeyn kara dalka sidoo kale shirkaddu waxay soo saartaa sharaabyada kala duwan waxaan soo saarnaa 6 nooc oo sharaab ah kuwaas ay ka mid tahay cocktailka orange-ka mangada appleka pineapple-ka iyo grape-ka sidoo kale iyagoo 500 ml iyagoo 200 ml marka waxaan noqonayaa 12 types of different juices ee shirkaddu ay soo saarto sidoo kale waxaan soo saarnaa yogurt ka baarka la yiraahdo isagoo fresh oo aan hay long life ka suuqa yaala iyo caanaha oo 3 nooc iyagoo fresh iyagoo leban with strawberry dhammaan production kaasi oo imika laga heli karo markidada magaalooyinka waaweyn ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland naas haddii aan su-aal ku weydiiyo waxaad sharaxaad naga siisaa loodan aad meesha ku haysaan muddadii ay halka ku jirtay sida ula qabsatay deegaanka keenteen iyo sida aad idinku u hawlgeliseen alwadeennada xanaaneeya hadday tahay marka la lisayo hadday tahay marka wax la siinayo hadday tahay marka haddii biidankeeda leeyahay ay dhalayso sharaxaad naga siisaa aad baad maasantay Muuse loodan imika tiradooda wartaan kugu sheegay waa 100 neef oo jaabuusiya loodan shaqaale gaar ah oo aqoon u leh ka shaqeeya loodan 25 neef ee gaarkaaba waxa ka shaqeeya hal qof oo ka shaqeeya caafimaadkeeda ka warhaynteeda u meelitaankeeda iyo cuntasiintoodaba looda sidaad ku arki doontaan qaybaha kala duwan ee warshada milka powder bay leedahay lagu liso maani walahan looma liso warshad neefka inta la soo kiciyo deetana meesha la geeyo ijiinka lagu rakibo deetana la soo debitana oo halkaas caanihi processing balaanka ay ku tuurto looda nimika waxay noo joogtaa muddo sanad ah oo la xanaaneynayo ilaa sanad iyo 2 bilood ah looda waxaan soo iibsanay iyadoo qaalma oo aan rimanayn halkana lagu rumiyay dhamaantood waxaanay iskugu talagalnay at same time inay mar wada dhalaan loodaasi ay yimaadaan waana loo runtii haddii caafimaadkeeda la siiyo amba cunto ku filan la siiyo caano ku filan oo ilaa 20 liters laga heli karaayo caafimaad ahaan waxaan noo joogaa niman dhakhaatiir oo veterinary oo nagala shaqeeya caafimaadka xoolaha waxaa sidoo kale iyaduna naga caawisa oo marmar noo yimaada wasaaradda xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhakhaatiir iyo hawlwadeeno kamid ah kuwaas oo naga caawiya inay eegaan caafimaadka xoolaha iyo sidoo kale inay siiyaan bal wixii dawooyin amba tallaal ah ee markaas ay siraahdo way u baahan yihiin markaad eegto Nasro muddadii ay hawsha ku jirteen ee warshadan ay shaqeynaysay wax soo saarka soo baxay marka la eego caanaha iyo sharaabka sidee bulshada reer Soomaaliland u qaabishay maxaa dareen noocay ka muujiyeen marka suuqa soo galeen waa su'aal aad u wanaagsan waa markii koobaad arkaan dadka reer Soomaaliland caano farasha oo dalkoogiya oo la keeno pasteurizer oo la soo laga iibiyo ruuxantina sharaabka juiceska waxa jira shirkado kale naga horeeyay qaar marka la soo dad sharaabka sameeyo laakiin shirkaddu waxay kaga duwan tahay waxay sameynaysaa wixii juiceska kuwa kalena waa beverages marka waa markii ugu horeysay guud ahaan shacbiga reer Soomaaliland aad iyo aad u soo dhaweeyeen aragtida ay ka qaban in local production-ka ay arkaan dalkooda laga soo saaray waxa jira marka suuqa soo galno kulay feedback badan oo dadku nagu soo celinayaan amba quality waxa laga bedelo amba iyaga la xiriira caanaha ka soo horeeyay sharaabka waxaan moodaa waqtigan la joogo inaan dhimaanka suuqu inuu kaba badan yahay supply-ga aan sameynayno oo aanan caanaha wada gaarsiin kareynin gobolada dalka oo dhan waxaan ku koobanay magaalada Hargeysa oo kaliya maxaa yeelay caanaha waxay u baahan yihiin waa talaagad in lagu ilaaliyo waxaan jiri karayaan leefkooda waa 7 cisho kaliya marka environment cool bay u baahan yihiin iyo talaagada laga warhayo asaate sharaabku waxaan gaarsiinay gobolada kale oo dhan iyo gobolka aan jaarkana ee Puntland magaalada Garowe oo aan u dirno marka runtii maadaama saan sheegay aan aqoon ugu horeysay jirin waxa dhici jirtay caanaha birigan soo saarno kale waxyaana naga qabsaday marka talaagada freezer-kayga lagu rido waqtiga bilow ka hooseysa 4 degree deetana gaariga ku soo qaadno gaarigana waa +8 amba +6 waxa noqda caani markan magaalada keenay maalmihiin ugu horeeyay markaan keenno iyagoo 4 cisho joogaan bas 3 cisho inay wax iska bedelaan tiina waxa noqotay markaan diraasad dib u sameynay in qabowga xoog la condition-kii ay la soo mareen la soo qabsadeen iyo gaariga marka la soo saaray saacadaha ay la soo socdaan condition-kiisa isaguna uu ka sareeyo waxa way different inuu yimaado tiina fililaha alxamdulillah waa xalinay dadka reer Soomaaliland aad bay ugu bogeen waana ugu amaaneen dhammaan marketska iyo supermarketada ugu waaweyn iyo hoteelada ee dalkana caanahaasi way ka heli karayaan ugu dambeyn waxaan doonayaa ku weydiiyo shirkaddu maalintii imsi soo saartaa marka la doonayo suuqa dalka idinka imanaya ma dabool karsan dhinaca caanaha iyo sharaabka labada
in kulli waxay ku xiran tahay xaddiga wax soo saar ee shirkadda aan soo saarna hadba dalabkaanu ka helno customerska ama dadka markaa shirkadda ku xidhan in caanaha oo kale berigi hore 3 jeer baan ugu soo saari jirnay weekii laakiin waxa lagu jira waqti qabooba oo aan caanaha sharaab waqtigan aad loo isticmaalin taas waxay keenaysaa twice in a week inaan weekiiba 2 jeer aanu caanaha soo saarno oo aanu yarayno laakiin sharaabku ka baday isagu daily waa la sameeyaa maalintii waxaan soo saarnaa ilaa iyo 600 oo kartoon oo kartooniska ku xidhan shirkaddu si bulshada kale reer Soomaaliland lafteeda aan uga faa'iideyno waxaan door bidnay markaan raacayna sales strategy policy-ga company-ga in aanu did agencies amba wakiilo gobollo iyo magaalo aan sameeyno si ay dad kalena ay uga sii faa'iidaan oo shirkaddu door inta sharaabkina soo saarto haddana iyadana suuqa ku sii iibkeenin isla markaana aanu daboolno policy-ga wasaaradda ganacsiga soo saartay in la kala saaro wholesaler-ka iyo retailer-ka marka dad gaar ah ku wareejino gobolladoo dhan wakiilaa jira Hargeysa moodo inuu ugu population-ka ugu badan yahay amba islaana dadka ugu badan isticmaalaya ay joogaan oo runtii ay ganacsato badan daneynayeen oo nala soo xidhiideen kala saaridooda nagu adkaatay markii dambe waxaan door bidnay inaanu agency-ga isku keeno deetana ganacsato ku jira field-kan noocana inaan isku keeno iyaguna ay noqdaan dad wakiilo oo Hargeysa ay ka iibiyaan marka kamiyad kasta iyo dhimaan kasta oo ay soo dalbadaan dadkaasi amba goboladu warshadu waxay awood u leedahay inay si faa'iideysanay barnaamijkan muuqaalka nolosheed ka soo barnaamij soo saara ka tahay Muuse waxaan u soo jeedin lahaa guud ahaan shacabweynaha reer Somaliland inay ku dhiiradaan oo ay ku daydaan sida maalqabeenadan amba dadka maalgashiyaasha ah ee shirkaddan ay fureen iyadoo oomaso oo bilow intay aamineen dalka ka soo saaran inay iyaguna sidaas si leeg ay soo saaraan oo ay ka maarmaan inay dacas iyo daqiiqun intay tagaan in dibadda inooga soo waaridaan taasoo soo jeedinaa shacabweynaha reer Soomaaliland waxaan soo jeedinaa inay tiltay warshadoodii inay tahay local production kii dalkooda laga soo saaray oo tayadiisa iyo caafimaadkiisa iyo nadaafadiisaba la hubiyay inta ay isticmaali lahay mid dirkiimad waxaan soo jeedinaa inay isticmaalaan kooga dalkooda oo ay wax badan oo horumarineed si ay uga qayb qaataan ay runtii ay u xidhan lahayd xagga xukuumadda waxaan soo jeedin lahaa runaantii iyadoo xukuumadda horena noogala shaqaysay tanna nala shaqayso hay'adaha ay quseeyaan sida wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jamhuuriyadda Somaliland wasaaradda beeraha wasaaradda deegaanka in ay noogala shaqeeyaan wixii ay nagala qaban karaan haddii tahay caafimaadka xoolaha iyo haddii tahay dayactirka iyo ilaalinta iyo deegaanka iyo wixii farsamo aynu u baahanay runtii wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda maaliyaddu aad bay noola shaqeeyaan cashuur dhaafka sida uu dhigayo dastuurka Somaliland warshadahuna waa marnaa anagoo kuna xidhan xafiiska ulka warshadleyda Somaliland marka runaantii xukuumad ahaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaana rajaynaynaa in wax qabadka ay la garab taagan yihiin dadka iyagu local production ka sameynaya taageerada ay siinayeen in la sii daba taagnaadaan inay halkaana ka sii wadaan aad iyo aad caanaha ka soo baxa warshada Green Valley Dairy Farm oo ah caanaha lagu magacaabo ramad oo isugu jira caanaha dhayda ah dhanaanka iyo noocyo kale oo kamid ah sharaabka ay warshadu soo saarto waxa lagu iibiyaa suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Somaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa Yaasiin Cismaan Jaamac waa madaxa suuqgeynta ee warshada Green Valley Dairy waxaanu ka waramay qaabka ay suuqa u galiyaan wax soo saarka warshada dalka ramad oo hadda ka yimi warshadii lagu soo sameeyay kana sokay hal saacad waanidayda ahaa oo aan wax daweey ku jirin fresh ah oo aan wax kiimika la socon waana dhalinyaro iyo waayeel iyo duqeyba caanihii loo amaanay way hadda waxaan dhigaynaa kabada keeganina sida arkaysan waxa halka raasaysan waa caanihii ramad dayda ahaa oo saacad tirigooda saacad toddoba cisho soconaya ilaa toddoba cisho lagu cabbi karo wax kiimika aan lahayn waana hadda magaalada ugu socod badan ee ugu dara badan caanayoga magaalada yaalla waxa kale oo jira halka ku jiro hadda talaagada qaboojiyaha aanu ku haynaa caani dhanaanka ciirta oo ah kuwa dadal loo yeelo lagu daray strawberry iyo caani ciirta oo saafiyo sidoodiya cidii doonta ay lulan karto markay doonto dad halkan yar ku jiro dhanaana kuwana waa dhaydi dadweynaha oo qolada qaysa iyo qolada caruurtooda iyo waayeel iyo dadka xanuunsanayo oo fuul loo diray gaasada tukamada waa meel ugu socda magaalo dhaban gaashay inta badan waa caanaha wax dawalahayn waa caanaha waxyeelo lahayn waa
caanihii dalkeena fresh lagu soo farsameeyey 20 kiiloomitir magaalada Dar es Salaam meelaha Hargeysa caanaha marka soo baxaan hadda anagu keenay xarbo waxa jira anagu horta xarun weyn baan u sameynay container qaboojiya baan ugu sameynay halkaas caanahani haddii aan magaalada waxaan ku leenahay maadaama caanahani aanay wax dawo oo ilaalinaya ku jirin caanahani waxay ka yimaadeen qaboojiyo waxaan ku leenahay xarun weyn oo aan caanaha iyo sharaabka warshada soo saarto aan ku kaydino caanahani maadaama aanay lahayn wax كيميكال oo ilaaliya mudadooda caanahan waxay ku jiraan dalaagada ka soo baxaan dalaagad baa lagu soo qaadaa marka la dukaamada geynaa waxaan geynaa meel qaboojiye wixii ka soo haray maanta waxaanu qaybinayno waxaanu ku kaydeynaa qaboojiye annaga baqaaqiyga weyn extgeerka laan waxaanu geynaa u qaybinaa xafadaha supermarketada waaweyn ee magaalada baanu badi geynaa waayo dadka danyarta ah dukaamada danyarta ah ma hayn karaan caanaha kala kulanta joogta ah bay u baahan yihiin caanaha kale sidaa awgeed waxaanu badanaa door bidnaa inaanu guddo dukaamada waaweyn ee leerkooda faraasiga saacado shaqaynayo baanu geynaa dadka macaamiisha halkaas ka gutaan haddana waxaanu samaynaynaa muddo dhow haddii ay beerto inaanu ku wareejino annagu dad ganacsataa oo awood inay tallaagada fara badan oo caana ay ku hayaan lagagana iibsay ku qaydiyaan aanu samayno afarta koon ee magaalada aanu samayno wakiil annaguna aanu markaa joojino qaybintaanu annagu hadda wadno laakiin gaariga iyagu wuxuu kasoo guri doonaa warshadda caanaha lagu sameeyo wuxuuna u geeni doonaa ninka distributorka weynaa ninkaasaa dabadna magaalada usii wasixi doona haddii ay gudmado muddo dhow waxaan u baahnay caanihii dadka inay qabasho caanadood oo ku ay saxda gorsa waxaan u baahnay tiro xabaan u baahnay isku jira inay strawberry وقول القربة عيرتي وستروبري سيسي ونوع واحد وحمد الله عليه القوي وفرق أنا رمضك وعنا دون أحسن وعنا بصعد بدن كان يبينه رنتي dadku aad buuxisay dad badan baa naga dalbada si bilaa wali booqaad ma sha Allah aanan aad baan u xisaynaa xitaa nagu iibintooda saylismaanadooda aad buu fiican xaga xisaabaadka xitaa adu waxaan ka sheegnaa buu caano wanaagsan ma sha Allah aad buu fiican barnaamijkeennii muuqaalka nolosha toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhinaca farsamada iyo filim qaadista waa maxamed caqli hadi iyo ismaaciil maxamed cabdulle iyo anuu musawir samo guuleeda dhammaantood maantii waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu you.